gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Xuseen ayaa tan iyo markii cod bixinta doorashada madaxtooyadu Soomaaliland ka qabsatay warbaahinta la hadlay waxaanu Xuseen doorashadaasi lagu kala adkaaday shir jaleed oo magaalada Hargeysa ku qabtay waxa uu Faysal Xuseen in xubno ka tirsan xisbiga wadani oo dhawaan shir ay Hargeysa ku qabteen ku soo bandhigay buugaagta cod bixinta ay qurux badneed in la xidho rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaahin waxa la soo qortay buugaag beenbeena oo lagu footay bay ilaahin فوجري بالاسوس سميره waxay ahayd markay ka baxeen meediyaha in la soo qabtay haday yihiin foojirina la keeno cidii keentay foojiriga soo sameysay buugta cod bixinta soo sameysay hadaa nak laga qaatay commissioner-kana la ogaado cid bixisay intay saayiraheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudaharaad dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda jooga waxaan arinta ogaatay inuu haa buug soo haray oo buugga codbixis ka soo haray oo gobolka saaxil ahaa waliba deegaanka taageera cira ah in la soo qabtaa way ragii press conference bixiyay ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas'uulka ah ee beenta faafiyay in la soo qabtaa way dhinaca kale waxa uu tabardaro ku tilmaamay gudida doorashooyinka Soomaaliland iyagoo aan la tashan xisaabta kale ay dib ugu tiriyaan xisbiga mucaaradka wadani sanaaduuqda cod bixinta 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo tiriyay ay ilaahin wadan nagu celiya iyagoo nagala tashan labada xisbe kale commissionku ayuu ogolaaday ilaa hadda 6 mid baa haro mid qor oo maqar laga helay ma jiro hal qaanad mid laga helay ma jiro laba maalmood dib u dhacday magaranaysaa in cod bixintii iyo in result kala sheego waxaan arkaynaa halka in jireec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyay in magtaqaanay nag koow in soo qabtaan buugi markay ogaadeen laga xalay kiisitay soo qabtaan kii u dhiibanay in helaan wadan aan sharci ku shaqeynin oo sulxun soconaya xirtajab wadan noqon maayo injineer Faysal Cali Xuseen ayaa intii uu shirkaasi jiray socday waxa uu xusay in lagu kala adkaaday doorashada dalka ka qabsatay waxaanu yiri wala kala baxay doorashada wala kala baxay wala ogaaday ninka sabab Ilaahay subhanahu wa ta'ala kooyna dilowino waxa aleenahay doorashadan way dhamaanaysaa nabad bay ku dhamaanaysaa cidii Ilaahay qoray way helaysaa halkaas aan hore uga socon insha Allah ta'ala waxa uu dhinaca kale siyaasiyiinta ku loolamaya doorashada dalka ka qabsoontay uu soo jeediyay in loo tulo shacabkii codkooda kala siiyay murashaxiinta inna laguma talagelin inuu keligii helo dadka rabshada laga daayamleen masaakiinta 22 maalmood aan ku dul warwareegnay campaign ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tagin rabshad kale oo baahnaan Soomaaliya waxaan leenahay dawladda maanta joogta ee bisha warsantayna waa inuu sharci shaqeeyo rag ka soo baaya ergaaban wax leenahay Soomaaliland waxa ay yeeli kartaa Soomaaliland ka u baahan idaga qaran u baahan idaga kan dekadii shaqeyneen wadada idin dhamaanin diyaaradii iman maanta cid u baahan qaran oo ga baahan ergaabo ma jirto kunaanadkina waxa uu cadeeyay shacabka Soomaaliland ay ka ilbaxeen inuu cadowgooda ku weersado isla markaa ay soo baxdo natiijada cod bixintuna ay dib gacmaha isu qabsan doonaan najcadan cunaye oo Cable TV Hargeysa.